bilowgii dhacdada 3 saynisyahan ayaa baabuur ku aaday xeebta halka mid iyaga ka mid ah lagu magacaabo Stephen uu ka sheekeeyay maalin ka hor duufaan weyn ayaa ku dhufatay badda taas oo mayd qof weyn ku qaaday xeebta kalluumaysatadii deegaanka oo yaaban ayaa la xidhiidhay mas'uuliyiintii markii hore diiday inay rumaystaan laakiin markii ay dadku bilaabeen inay soo booqdaan xeebta oo ay ku soo noqdaan sheekooyin waalan saynisyahanadu waxay go'aansadeen inay iskood wax u arkaan haddaba Stephen iyo asxaabtiisa oo u malaynayay in qof kasta uu iska indhotiray kii dhintay hadda hortiisa ayay taagan yihiin dadweyne ayaa ku hareeraysan maydka iyagoo ka baqaya inay taabtaan ka hor inta aanay si buuxda u hubin inay badbaado tahay saaxiibada Stephen waxay qiyaasayaan in ninku uu miisaankiisu yahay ilaa 80 tan Stephen waxa uu ka sheekeeyay in tirada badan ee astaamihiisa ay ku adkaynayso inay gartaan dadiisa laakiin marka la eego sanka iyo afka qeexan ee rafaa wuxuu rumaysan yahay inuu ahaan jiray nin dhalinyaro ah saddexdu waxay ku wareegaan jidhka weyne iyagoo eegaya isaga Stephen waxa uu arkay barkad biyo ah oo lagu soo ururiyey calacalaha maydka oo kalluunka yaryari ku dabaalanayaan Stephen waxa uu sheegay in wixii ka baxsan cabirka weyn xaqiiqda fudud ee ah inta uu jiro aad ula yaabto isaga wuxuu isbarbardhigayaa jiritaanka weynaanta iyo dadka badan ee xeebta markii Stephen uu eegayo makhluuqa la miir beelay saaxiibkiis waxa uu koray laabta maydka isagoo muujinaya inay nabad tahay in loo soo dhowaado dadkii waxay u yaaceen xaggiisa iyagoo faraxsan oo kor u fuulay qaarkood waxay ka faalloodaan in jirku yahay caag oo soo jiidasho leh carruurtu waxay bilaabaan inay ku ciyaaraan laabtiisa iyagoo ku xaaqaya kabahooda Stephen si kastaba ha ahaatee ma taaban ama ma fuulo isaga iyo asxaabtiisu meel fog bay ka eegayaan rafaa markay qoraalkooda ku qorayaan waqtigu wuu dhaafaa dadku waxay helayaan ciyaar ku filan oo ay ku ciyaaraan qofka dhintay qof kastaana wuxuu ku soo noqdaa gurigiisii 3 maalmood kadib Stephen mar kale ayuu soo booqday xeebta xiisaha sii kordhaysa ee uu u qabo qofka aadka u weyn awgeed xaruntiisu waxa ay u xilsaartaa doorka la socoshada Stephen waxa uu ku andacoonayaa in aanu ka xumaanayn in isha lagu hayo qof dhintay waxa uu daawadaa marka ay carruurtu ku ciyaarayaan simbiraar laabta maydka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa qorshaynaya in ay qalaan laftiisa femur maydku wuxuu noqday hanti dadweyne maalintii xigtay Stephen wuxuu si ula kac ah dib ugu dhigay booqashadiisa xeebta ilaa galabtii dambe si qofna uusan u agjoogin markuu halkaas tago maydku qaab xun buu u muuqdaa oo wuxuu bilaabay inuu qudhunto gabarta yar ayaa si raaxo leh ugu fadhisa dhagta weyn iyadoo u adeegsanaysa kursi ahaan Stephen waxa uu ogaaday in wejiga rafaa uu ka muuqaal yar yahay sidii hore waxa uu u malaynayaa in ay sababtu tahay ku noqoshada dheer ee biyaha badda iyo burburinta unugyada marka uu carsaanyo ka soo gurguurto afka aadka u weyn saynisyahanku waxa uu sheeganayaa in aanay dheerayn ilaa uu si buuxda u qudhmo Stephen ugu dambeyntii wuxuu helay geesinimo uu cagta saaro maydka dusha laabtiisa waxa uu ku arkay qalcad ciid ah oo qof dhisay dabadeed cududiisii kale ayaa soo gashay oo ina tusinaysa in wixii ka hadhana ay dadku qaateen dhanka kale laftiisa waxa ay noqotay ciir iyo daruuro taas oo siinaysa indhihiisa saamayn wareeg ah marka xigta ee uu booqdo ninka weyn labadiisa gacmood iyo mid ka mid ah labadiisa lugood ayaa qudhuntay Stephen wuu wareegayaa isagoo eegaya maydka kaas oo ay burburiyeen dhalinyaro ku buufiyey cayda jidhkiisa wuu ka warwareegaa inuu markhaati ka noqdo dhammaadka makhluuqa quruxda badan markuu Stephen yimaado xeebta maalinta xigta wuu naxay markuu arkay in madaxa maydka laga saaray shimbiraha waxa ay cunaan hilibkiisa sida Stephen uu meel fog ka eegayo madax la'aanteed maydku waxa uu ekaa dad ka yar taas oo yaraynaysa xidhiidhka Stephen uu la leeyahay mayd maalintaas kadib ma soo booqdo xeebta dhowr toddobaad socdaalkiisa xiga waxa uu markhaati ka yahay in muuqaal kasta muujinaya in maydku mar uun ahaa bini'aadam ay meesha ka baxday waxa keliya ee hadhay waa mindhicirka qudhunsan ee makhluuqgii hore ee quruxda badnaa hadda xiisihii dadka badnaa ee weyne waa dhacay bilo kadib imaatinka rafaa la iloobay qaybo kala duwan oo jidhkiisa ah ayaa lagu arki karaa agagaarka magaalada gaar ahaan lafihiisa kuwaas oo loo isticmaalo qurxinta markuu baaskiil waday hal maalin Stephen wuxuu arkay dhafoorka aadka u weyn oo jiifa waxa uu rumaysan yahay in haddii uu eego hareeraha baararka magaalada uu sidoo kale ka heli doono sanka iyo dhegaha baan ugu dambeyntii saynisyahanku waxa uu sheegay in dadkii arkay weyne ay isaga u xasuusan yihiin in uu yahay bahal badeed oo keliya si kastaba ha ahaatee isaga rafaa weli wuu nool yahay oo wuxuu inta badan ku riyoodaa sarakicidiisa riyooyinkiisa weyna wuxuu dhex maraa magaalada isagoo soo qaadanaya jajabkiisa safarkiisa badda dhacdada inkasta oo gaaban waxay leedahay macno qoto dheer oo sarbeeb ah muuqaal kasta
taageerayaasha dhacdada ayaa u fasiray si iyaga u gaar ah, laakiin qaar badan ayaa aaminsan in sheeko-yaqaanka Stephen uu yahay kan weyn laftiisa. Stephen waxa uu dareemaa xanuunka weyn marka qof kale aanu awoodin. Marka taageerayaasha qaar waxay u malaynayaan in Stephen iyo Giant ay yihiin dad isku mid ah. Waxaa intaa dheer, sida Stephen uu sharaxo dhowr marxaladood oo ah qudhunka meydka si faahfaahsan ayaa qofka ka dhigaya in uu la yaabay in isaga uu yahay kan marxaladaha mara. Sheekada Stephen waxa uu si dhow ula socdaa qudhunka meydka marxalad kasta. Marka hore, waxa uu arkayaa habka la rabay in uu dhaco, kaas oo ah jidhkiisa oo qudhunaya waqtiga ka bacdi. Dabadeed waxa uu arkay dad bilaabay in ay gooyaan meydka ula dhaqmaya sidii badeecad, iyo sida aadanuhu ula dhaqmaan isaga si liidata ayaa u tustay heerka ay gaarsiisan tahay wax isticmaalka iyo ka faa'iidaysiga ee loo arko wax caadi ah adduunka maanta. Markay sheekadu sii socoto, Stephen waxa uu bilaabay in uu su'aalo waxa ay la macno tahay in la noqdo bini'aadam iyo goorma ayaan go'aansanay in aan luminay bini'aadantinimada. Ilaa uu meydku madax yeelanayo, wuxuu u maleeyay inuu yahay bini'aadam isaga oo kale ah iyo kuwa kale ee ku xeeran. Subscribe saar si aad u hesho muuqaalo badan oo noocan oo kale ah. Sii sharagaree linkiga oo la wadaag asxaabtaada si aad u caawiso kanaalka. Hoos noogu reeb fikirkaaga, waad ku mahadsan tahay daawashada.